السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي يا الكسر وهذا ما أنت أيوه مقال كنا مال لها جوك تداها channel كنا قدر فني شو هذا واحد مقال كنا كسر قادة دونا ما أنت عيارتوي تجي عمامة دودو مرنا لهي سكري وحي سمايين وحي عندنا سمايين هذا واحد جرا بوغ لو قرا أما اللي قدي وانجليو كوا سمايي دعويك أقوى وين أدوك أما معجزينك أقوى بدن أدوك السمايي بجرو هذا واحد مسوق قادة دونا ما أنت qaybo badan oo ciyaareed oo ciyaartoy badan oo sameeyaan eegi doonaa misana galay buuga lagu qoro waxyaabaha mucjisooyinka dunida ee World Guinness Record ayaan eegi doonaayo hadda waxaan soo qaadan doonaa sheekada ku aadan ciyaartoyga waxa ay sameeyeen aan hore loo sameyn waxaad arki doontaa ciyaartoy ka yaabinaya recordska mucjisada ay sameeyeen oo aan loo maleyn xataa qaarkood inaan dib dambe loo sameyn qodobada ay ku kala soo qaadan doonaayo waliba ay ku jiraan xubinteeni ku maanahay iyo jawaabin shir laga bixiyo odaygu kolbo idin fahmay markaad markaan marka la idin ilmeeyo ayaa xoogaa la idin ka degayaan waan fahmay kab il markaan gishto xoogaa waa degaysaan laakiin markaan kabaha weyn ka soo gishto waa ku ordaysaan su'aalaha jawaabahoodu bal waan arki doonaa qaybaha maanta iyo dambe ayaan ku eegi doonaa barnaamijkeena subscribe ka noo saara channelka أصحابي سيد وشان معلومات كوجود دنبية تاريخي كوبدا عقتا انترتينمنت كمدة دالة وحبنا بدل كان كيري دون أصحابي ما سبسكرايب كنوص على channelك بل هو يهيو ما أنت يو برنامج كيري بنسوق هذا دونا يو مقال كنا مالي له واندي سلام أصحابت مالك استوى الدنيا ذيك جوكتان برنامج كيري بنقود قلي دونا وحنكوه مري دونا تاريخ دا عيارتو جوا وين كوبدا عقتا وحاج ربوك لو قرا دعويك جوا وين أدونك أو أنا دتكو قارئين بدن أيو سمين كريم وحلا دعويك كان ciyaartooygu kan records ay sameeyeen waa records laga yaabo xataa inaan mar dambe dib loo sameyn waxay ku mutaysay recordka ay sameeyeen ciyaartooygu kan in la geliyo buuga loo yaqaano Guinness World Record oo lagu qoro waxyaabaha mucjisooyinka adduunka dhaca ayaa lagu qoraayo lagu diiwaan geliyaa haddaba waxaanu soo qaadan doonaa waxaan isku dayi doonaa in ka wada gaarno maanta muuqaalkeena ku dhamayno dhammaan ciyaartooyga la geliyay diiwaanka recordska taariikhda ee buuga mucjisooyinka dunida ayaan isku dayi doonaayo bal si aan u gaarno qaybo badan oo kamid ah baan kabti karinta ka dhigi doonaa kabtaya karinta iska soo koobayna waka Nicholas Badna gaba taqaanin waa mid qalow ah oo asal u ciyaari jiray laakiin waxa ninkan Arsenal wiilish winger buu kamid ahaa ilmi yar winger buu kamid ahaa hadda nin weyn dib badan oo ku soo baxay Nicholas Badna wuxuu haystaa goolka ugu dhaqsiyaha badan taariikhda Premier League ciyaartoy badal ku soo galay ayuu haystaa isagoo badal ku soo galay ayuu si dhaqsiyo gool hore ugu dhaliyay Premier League wuxuu ahaa kulan derby London buu haayo oo Tottenham iyo Arsenal u dhaxeeyo laad ka yimaaday Conor Fabregas ayuu ninkan madaxa ku dhuftay hal daqiiqo iyo 8 ilbiraqsi ayuu goolka ku dhaliyay marka Nicholas Badna oo kale wuxuu buuga recordka adduunyada ku galay taariikhda mucjisooyinka lagu qoro wuxuu ku galay inuu isagu dhaliyo goolkii ugu dhaqsiyaha badnaa isagoo badal ku soo galay marka Nicholas Badna ciidamadiisu loo haysan karo wiilash winger uu kamid ahaa winger waxa weeyaan Arsenal ay u hayeen uu ka tagay ilaa haddana wax ciidamad la tababaro lagama hayo waa kay iyagu wararsan Javier Zanetti waa legend waa kabiir dadku talaanigu taageero ay aad u garanayeen ninka xitaa waa Argentinian weyn dambeedka midig waa lagu amaana isagu nin khatar badan buu ahaa Javier Zanetti wuxuu isagu haystaa recordka ciyaartooyga awood u yeeshay inuu kulmo badan iska daba ciyaaro ciyaartooyga outfield player ku xalreeda marka gool ayaa laga soo tago inta kale garoonka dhinacyada ka ciyaar ayaa raado ama gees ka ciyaaro ama garab ka ciyaaro ama dhex ka ciyaaro ama weer ka ciyaaro outfield player ku marka laga hadlo marka gool hayu laga soo reebo garoonka dhinac intiisa kale ciyaartooyga ka ciyaara ninka waa ninka sameeyay taariikhda kubadda cagta Serie A ninka sameeyay weeyaan in kulmo badan oo xiriir ah uu soo xaadiro Inter Milan legendkeedu weeyaan Zanetti buuga recordka waana lagu qorayo ninkan ayaan hal kulan seegin ka war joogto uu ciyaarayay intii u dhaxaysay October 26 ilaa iyo December 13 ciyaaraya ka war hal kulan ma la seegin ilaa ciyaarto ma haysi maanta iska dhaawacmay sagaashku waa dhaawacayn leh war dadka hadda jira shaqo ma rabaan Usman Qabar waa maqan yahay hasada waa iska maqan yahay beel markasto isbitaal uu jiifa bogba isbitaalka laga soo raadina waxa jira ciyaarto markaad guriga ka wayso isbitaalka soo helis ilaa sagaashku waa dhaawacayn rabsiya ku jira xataa sagaashku waa dhaawacayn isbitaal bay ku jiraan Sineetna Verin hal kulan lama seegin ka waran hal ciyaaro horyaalka maanu seegin ka waran 2006 bishii October ilaa December 2009 iska tuur rag hore bay hayne rag shaqo diyaar bay ah ragaan ilmahan lacagta badan lagu beelaya ee aan shaqada rabin sagaashan ka dhaawacan caawga markaas leeyahay waa ciyaarina waa dhaawacad maqlaysa Lionel Messi markuu meeshu marayso gambarka istaagid bay leedahay
marka Lionel marayso waynaad ka istaagtaa sababtoo ah isagu waa Messi ha kii lixdu qaaday waa kan ugu badan taariikhda kubadda cagta ee haysta jaaysooyinka ugu badan ee dunida hadda ninkana wuxuu isagu ku galay book World Guinness Record-ka wuxuu ku galay inuu yahay ninka hal sano dhaliyo goolasho ugu badnaa qof bini aadan ah oo ay habar dhashay inuu soo baxo oo rekoorka uu taaban karo loo malanayo iska dhaa qof kale inuu taabtee xitaa Messi aanu jirin karin hal sano ayuu odagu naga yaabay marka qaar waxaan idiraahdaa Messi ku arag inkaaro meeshan ka soo bilaabay ereygaas waxay ahayd 2002 bay ahayd markuu Messi na waalay sagaashak waa dhalnale sagaa waa gool badan buu dhalnaya farq weeyaan lama celi karo hadda odagu ilmoolow noqday ilmooruska Argentina ay ka wareerinaysa Ruuska dhinacay ka wareerinaysa ilmi dhinacay ka wareerinooyin Barcelonadii Argentinooday marka qaar markuu Argentina ku soo wareero Barcelona ku madaxdagsan jiray hadda Barcelonadii ayaaba ka Argentinooday laakiin nin oday weeyaan hadda sidii hore ma laakiin ninka Qatar weeyaan waa ninka 91 gool dhaliya hal sano macnuu maxay ka hadlaysaa waa 12 bilood in lagu dhaliyo 91 gool wax caadi ma ahan Lionel baa sameeyay gool uu dhaliyo wadankiisa Argentina iyo goolashu uu dhaliyo kooxda Barcelona markaas ku daro sanadkaas Lionel Messi waxa uu dhaliyay 91 gool 2012 hal sano ayuu ku dhaliyay 91 gool waa record qofna aynu gaari karin cidna ma gaari karto rekoorkaas xitaa Messi aan dib u gaari karin xitaa waa ninka haysta Argentinaanku waa ninka haysta rekoorka ajnabiga ugu goolasho badan taariikhda Real League waa ninka ugu goolasho badan Real taariikhda marka 91 gool isan la dhaliyo wax macquul ma aha boqol laga soo qabro Messi hal sana boqol gool u dhal rabay 91 gool baa la gaaray ninkan gaabka marka inkaar waa marka aan dilaay Messi ku arag Messi caawa ka hor yimaada lagu habaaro waa inkaar ugu weyn u Bruniga Paolo Maldini legend weeyaan kabiiro Italiyaan ninkana wuxuu haystaa ama ku galay buuga lagu qoro diiwaanka dhacdooyinka mucjisooyinka dunidu wuxuu ku koray ninka kan ama ku galay inuu yahay odaygii ugu da'da weynaa ama ciidigii ugu da'da weynaa ee kulan Champions League kabtan u noqda koox ay Simon buu kabtan u ahaa isagoo da'diisu ay ahayd 39 sano 239 maalmood ayuu kulankii Arsenal ee Simon Champions League 2008 dhacay kabtan ka ahaa sidaasna Maldini wuxuu ku noqday ciyaartooyga ugu da'da weynaa ee kabtan ka noqda kulan ka tirsan Champions League 39 sano iyo 209 maalmood ayaa istii lagu sii ciyaaraya waa wax weyn Maldini nin weyn buu ahaa ninkaas nin caadi ma ahayn Paolo kabiir Italiyaan weeyaan sidoo kale recordska taariikhda waxa ku jira Hakan Sukar waxaad ku xasuusanaysaa magaca marka dib ugu laabato koobkii adduunka ee 2002 Xasan Saas iyo Hakan Sukar iyo waxay hayeen ragii Turkiga ugu qatarta badnaa iyo gool hay meelaha xariiqinta ku lahaa hadda maalin coronavirus baa ku dhacayo wuu ka bogsooday laakiin Barcelona wuu soo marayo waxay ahaayeen Turkiga ugu qatar badan koobkii adduunka 2002 waliba waxa la yiraahdaa koob adduun oo xiiso badan 2002 buu jiray inkastoo World Cup-kii 2006 uu qaaday xataa uu ficnaa iyo kuwii kale Spain u qaadayeen iyo kii Germany iyo kii Faransiisku laakiin kaas ragii hore ayaa ragii sii baxay waaweynki Ronaldo weyne iyo Balaad iyo odayaashii waaweynaa iyo laacibiintii waaweynaa ayaa waqtiga ciyaaray markaas dhamaadka ciyaartoygu waaweynaa bay ahayd laba gulixdii qaarkood baa soo gaaray laakiin kadib waa la waayay ragga hore Sukar waa ninka dhaliya goolkii ugu dhaqsiyaha badnaa koobka adduunka weeyaan Turkishka ninka u dhashay ayaa ka dhaliya gool South Korea oo gurigooda lagu ciyaaray sanadkaasna mushkil ay ahaayeen xataa tiraan u reebeen haddaba 19 June 2002 buu ninkan kaga dhaliya gool 12 ilbras marka ciyaar socotay ayuu hood soo nishab ka siiya gool waxaanu sidaas ku yahay Sukar ninka dhaliyay goolkii ugu dhaqsiyaha badnaa World Cup-ka dunida ama koobka adduunka ninka dhaliyay weeyaan goolka ugu dhaqsiyaha badnaa Beli kolay waa ninka maanta warbixintina ku gabagabeyn doono waliba sheekada ma naga dhamaan doonto taxana bay noo ahaan doontaa kama gaarno daqiiqadaha waa naga yaani qaybaha barnaamijka ugu talagalnay bay naga dhacayeen haddaba Beli isna wuxuu ahaa da'yarka ugu yara ee World Cup final gool ka dhaliya Beli marka dhowrkan arin aan ku sheego darteed u garo inuu yahay kii ugu fiicnaa kamal daariga Beli waa ninka dhaliyay 1800 waa ninka dhaliyay 1283 gool waya ninka dhaliyay waa ninka ku guuleystay 3 jeer koobka adduunka waana ninka ka dhaliyay gool isagoo da'yar koobka adduunka finalkiisii 1908 isagoo jira 17 sano 249 maalmood ayuu gool ku dhaliyay xitaa Mbappe rekoorkaas maanu jibin markuu 2008 gool ka dhaliyay koobka adduunka dhaliyay xataa Mbappe rekoorkaas waa gaari waayay intaas waxyaabood ama saddexdaas dhacdo oo isku soo daray darteed uu sameeyay Beli wuxuu ugu qalmaa isagu in aad loo qadariyo in ka badan inta la qadariyo ciyaartooyga dunidu in badanna waxa lagu dooday in isagu yahay maalintii Bruniga Ariel lagu shubay kii ugu fiicnaa baa loo arkaa
inuu dhaliyo kun 283 gool inuu 17 sano jir 249 gool kaga dhaliyo koob adduun final iyo inuu haysto 3 koob adduun waxay ka dhigan tahay inaad iska jirto Bale inaad qiimeyn gaar siiso hadaba intaan ka bixid dhacdada tan waa noo socon doontaa ciyaartooyga buuga ganiska rekorka lagu qoray ee mucusooyinka dunida lagu qoray way noo sii socon doonaan iyo kolley shalay waxaan nidi marka odag idin ka yaabay oo maareedii waayay buu ilmaha ku gambaday ha ileen ka su'aashan idin weydiiba waa idinku ka jawaabaya markaas baan waxaan iri nimanka mad u ilmaysi ciyaartooygu weyn u aadinay uu ilmay baan isri ilmii markaan aaday waxaan idin weydiiyay su'aal ahayd 3 gaaniyaan ah oo Premier League ka ciyaara oo xilli ciyaareedka kan عاوين أما برميلي جول كدلي أما جول كدلي أما عاوين بيهادو عيارتوه waxay kaliyihiin Jordan Ayew Crystal Palace u ciyaara Geoffrey Schlupp oo u ciyaara Blaise iyo waliba sidoo kale Atsu Newcastle u ciyaara waa saddex nin oo gaano u dhashay oo gool ama ka dhali ama ka caawiy sanadkan ciyaaraha Premier League ay kuwa ka ahaayeen rag badan baa isku soo dayay kollay dadku qaarna waxay ka hadlayeen aragii goolayaasha ku ficnaa Premier League qaar waxay leeyihiin waa ku Liverpool soo maray qaar waxay leeyihiin waa ku Manchester soo maray ku Manchester soo waxay kala jiraan Tevez iyo Ronaldo Rooney baa ugu ficnaa bay leeyihiin qaar koodna waxay leeyihiin Salah Firmino baa ugu ficnaa waayahay dadka qaar baa isku soo dayo nin yiraahdo Abdulaziz Cobra Atsu leeyahay Ayew iyo Amartey mid baa ka maqnaa sidoo kale waxaan joogaa Kenya qadar oo cimada ma haysto ciyaartooy Liverpool baa ugu fiican buu leeyahay ya gaarana waa Schlupp Ayew iyo Atsu wariyaha ninkaas khatar waa ninkaas aad buu keenaya warninkan intuu jooga wariyahan waa saaxiibkay joogaya ciidamadiisu ma haysto waashiga ka wariyaha ilmiyaha xataa miga daba tagteen ya wuxuu yiri waa Schlupp iyo Ayew iyo Atsu waa runtii هاي سيدو كلا سوسعون أو كيبا وريا كلا وربرجي مي الأم لو وريري مسك دافقوان هاي أيو أمرتي إيش كلاب واو أمرتي نقوم تجري الديوان كيا ورا أمرتي نو شكلابان نقولش أيو إيش كلاب يكسبان دونينا أوكي كسعون لما قدروا عمد يقولوا ولا يا نو ولي لما هيو ضدك قار ولي ما نكينو ويسوق له عبد الرزاق وجوهر جيسة والله إنك بقوله ويسوق بقوله يعني وجوردن آيو إشكلاب أو يأسو ورياني وحتى كوحة وصوت اللي كورني كان ورياه محمد عبد الرزاق ورجيسة جوجا وريه شو بقى تايكورني وبلوكيت يكون مريني وريه محمد الله ما يسكره هذا المية ما ركع فك الله المية ركع ما ركع فك الله سيدو كله ركع لا بس صوت ضيو شاب صبح ورجع شغل ديارك بحماش يعني مين كلا وحوله هي وضدك شغل ديار كلا ماي ورينا المايلة هذا كده هذه الماء يا قيم مرة كده وراح يصنع إنه معناه يا ده كوين باكرون كلبان من الزلاي هاي أوكي ورياك لا أمردي أيو واتسو متكاسب وسويري يا ورياك لا عم قدروا كسمايا جوجا جابتوا أيو أتسو نبي كيتا يا كل يوم كايو برنامج كني وأنت بسوق وجيني ناس أصحابي سيدا إنه بتقليو هذا أنت كم بحد dhacdada tan waa noo socon doontaa ciyaartooyga buuga ganiska rekorka lagu qoray ee mucusooyinka dunida lagu qoray way noo sii socon doonaan iyo kolley shalay waxaan nidi marka odag idin ka yaabay oo maareedii waayay buu ilmaha ku gambaday ha ileen ka su'aashan idin weydiiba waa idinku ka jawaabaya markaas baan waxaan iri nimanka mad u ilmaysi ciyaartooygu weyn u aadinay uu ilmay baan isri ilmii markaan aaday waxaan idin weydiiyay su'aal ahayd 3 gaaniyaan ah oo Premier League ka ciyaara oo xilli ciyaareedka kan عاوين أما برميلي جول كدلي أما جول كدلي أما عاوين بيهادو عيارتوه waxay kaliyihiin Jordan Ayew Crystal Palace u ciyaara Geoffrey Schlupp oo u ciyaara Blaise iyo waliba sidoo kale Atsu Newcastle u ciyaara waa saddex nin oo gaano u dhashay oo gool ama ka dhali ama ka caawiy sanadkan ciyaaraha Premier League ay kuwa ka ahaayeen rag badan baa isku soo dayay kollay dadku qaarna waxay ka hadlayeen aragii goolayaasha ku ficnaa Premier League qaar waxay leeyihiin waa ku Liverpool soo maray qaar waxay leeyihiin waa ku Manchester soo maray ku Manchester soo waxay kala jiraan Tevez iyo Ronaldo Rooney baa ugu ficnaa bay leeyihiin qaar koodna waxay leeyihiin Salah Firmino baa ugu ficnaa waayahay dadka qaar baa isku soo dayo nin yiraahdo Abdulaziz Cobra Atsu leeyahay Ayew iyo Amartey mid baa ka maqnaa sidoo kale waxaan joogaa Kenya qadar oo cimada ma haysto ciyaartooy Liverpool baa ugu fiican buu leeyahay ya gaarana waa Schlupp Ayew iyo Atsu wariyaha ninkaas khatar waa ninkaas aad buu keenaya warninkan intuu jooga wariyahan waa saaxiibkay joogaya ciidamadiisu ma haysto waashiga ka wariyaha ilmiyaha xataa miga daba tagteen ya wuxuu yiri waa Schlupp iyo Ayew iyo Atsu waa runtii هاي سيدو كلا سوسعون أو كيبا وريا كلا وربرجي مي الأم لو وريري مسك دافقوان هاي أيو أمرتي إيش كلاب واو أمرتي نقوم تجري الديوان كيا ورا أمرتي نو شكلابان نقولش أيو إيش كلاب يكسبان دونينا أوكي كسعون لما قدروا عمد يقولوا ولا يا نو ولي لما هيو ضدك قار ولي ما نكينو ويسوق له عبد الرزاق وجوهر جيسة والله إنك بقوله ويسوق بقوله يعني
وجوردن ايو اسكلوب او ياسو ورياني وحتى كوحا وصو تري كورني كان ورياه محمد عبد الرزاق ورقيسه جوجا وريو شو باتا كورني وبلوكيتا ku mareeyay وريو محمد الله يسا karo hada ilmiya marka ka fakal lahay ilmiya yarka tama ka fakal lahay sidoo kale rag kale aad soo dayo jaabta soo bixi warag rag shaqo diyaar ka buuxo meeshaan nin kale wuxuu leeyahay waa dadka shaqada u diyaar kale meey ورينا المايلة هذا كذب ما هدي المهيا قيم مرة كذا وراح يصنعينه معنا يا ذاتك وين باكرون كل ما زلاي هاي أوكي بقى ورياك كلا أمردي أيوه واتسو متكاسب وسويري يا ورياك كلا عم قدروا كسمايان جوجا شابتوا أيوه أتسو نبي كيتا يا كل يوم كايو برنامج كني وأنا تقصوا جوجيني ناس عابي سيدا إنه بتقليو